nabigeenuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi maalin maalmaha ka mida saxaabadiisa isagoo la socda ayaa nebigu wuxuu soo maray sal alla alay wasalam orgi yar oo bakhti ah oo muxuu ahaay dhaga yaryar dhukan bay dhahan soomaalidu orgigaasoo bakhtiya buu nebigu soo maray sal alla alay wasalam saxaabadiisuna waa la socdaan tusaaluu nebigu siinayay sal alla alay wasalam saxaabada markaasuu wuxuu ku yidhi nebigu sal alla alay wasalam orgigan yaa iga iibsanaya oo hal dirham ah iga siisanaya markaasaa wax rasuulka ilaahay ow hadda waaba bakhtiye hadduu nool yahay xataa waxba laguma faleen maxaa yeelay foolxumadiisa xaggee la geynaya yani neefku markuu dhaga yaryar yahay waa foolxum yahay marka waxaa nebigu yidhi sal alla alay wasalam adduunyada ayaa ka liidata orgigaasi agtiinna siduu ka yahay adduunyadaa ka qiimo liidata buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka adduunyadu qiimo ma laha wasan iyo qiimona ma laha qiimo darradeeda waxaa ka mid ah midka la siiyey oo haystana waa kadeedan yahay waa ku rafaadsan yahay midka ay ka maqan tahayna raadinteedii buu ku dhibban yahay cidina kuma nasna cidday ka maqan tahayna yacni waa dhibban yahay oo waxbaa kaa maqan oo murug oo raadi oo hurdola'aan oo shaqe oo orod buu ku mashquulsan yahay kii haystayna isagana murug iyo walbahaar iyo cudurro iyo yacni xisaabinteeda iyo ka warhaynteeda iyo hurdola'aan iyo intaasoo cudur baa ku dhacay isagana marka daar iyada dhan ma aha yacni nasiino looguma talagelin saan horeyba u sheegnay gaar ahaan ruuxu markuu iimaankiisa iyo islaamnimadiisu daciif tahay adduunyadani cadaab bay ku noqoni xoolaheedaa cadaab ku noqon kuraasteedaa cadaab ku noqon yacni wixii oo dhan wuxuu ku noqonayaa cidhiidh iyo rafaad buu ku noqonaya waa ka ilaahay munaafiqiinta markuu ka hadlayay suuratu tawba alla waa ka yidhi tabaaraka watacaala falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati addunya xoolahooda iyo carruurtooda iyayna ku cajabinin waxba ha u bogin iyayna ku cajabinin ilaahay wuxuu doonayaa inuu ku cadaabo adduunyada xoolihii baa cadaab ku noqonaya carruurtoodii baa lagu cadaabaya oo lagu ciqaabayaa adduunyada kadibna gaalnimay ku dhimanayaan saasay aakharana iyadana ku khasaarayaan marka waxa weeye iyadii oo wax iska qiimo liidatay baa haddana waxoogaageedii la haystay baa haddana aan saafi ahayn waa calow way qasan tahay muxuu ahaay cudur iyo walbahaar iyo murug iyo rafaad iyo waxan oo dhan bay wadataa haddana wayba ka dartay haddana indhala'aantii dad cunnimayba ku darsato hadda wayba ka sii dartayba oo wakhtigan hadda la joogaayey adduunyadii hore ma aha waa adduunyo fitan ah waa adduunyo imtixaan ah waa adduunyo muxuu ahay iyada dhanba wada cudurro ah wada jirro ah kii xoolo haystay sankarow buu qabaa dhiikar buu qabaa rafaad buu qabaa yacni waxa weye xataa wixii uu qabay ma intifaacsan karo waa la rafaadsan yahay waa la kadeedan yahay yacni waxa weye kiniini iyo daawaa lagu wada socdaa adduunkii marka waxa weeyaan waa rafaadkaasaa loogu talagalay sidiisaba meel lagu nasta ma aha sidaas daraaddeed iyadoo saa ay tahay oo dhibkaa ay tahay oo kii haystayna kadeedan yahay kii ay ka maqnaydna uu rafaadsan yahay ayaa haddana maca daalika aad ka dhex bixi doontaa adigoo keligaa ah baad ka dhex bixi doontaa waxna kaa raaci maayo daaraha aad dhistay magaalooyinka aad dhistay hantida aad kaydisay carruurta aad dhashay xoolaha aad tabacday waxaad isku hagaajisay kuraastiiyo jagooyinka waxaasoo dhan adigoo keligaa ah baad ka dhex bixi calala cadcad inta lagugu duuduubo ayaa god yaroo 2 mitira lagu dhex dhigi halkaasaa yaad ku tegaysaa oo wixii oo dhan aad kaga tegaysaa kadibna ilaahay baad u tegaysaa adigoo keligaa ah walaqad ji'tumuuna furaada kamaa khalaqnaakum awala mara wataraktum maa khawalnaakum waraa'a duhuurikum alla wuxuu uhi tabaaraka watacaala waxaad noo timaadeen sidii aan idiin abuurnay adigoo keligaa ah baad ii timid sidii aan kuu abuuray adoo ah laanna marka ilaahay loo tegayo qubuurta laga soo baxayo maalinkii adduunyada aad imaanaysa sidaad ahaydoo kaleetaad ku tegaysaa waad qaawan tahay mara ma qabtid yacni wax weeye buuryo qab baa tahay oo muxuu ahaaye wixii qashin lagaa gooyo o dhan baa kugu yaalla waad kabala'dahay oo kaba ma qabtid sidii aad adduunyada ku timid adigoo ah baad ilaahay u tegi tabaaraka watacaala wax haba yaraatee adduunyadii kaala socdana ma jiro ibni aadamka siduu nebigu sheegay sala allahu calayh waaalih wasalam markuu dhinto qabriga waxaa u raaca ehelkiisii iyo xoolihiisii iyo wixii ehel iyo qaraabo ahaa iyo camalkiisii baa raaca laba way iska soo noqdaan markay godka kugu hubsadaan xoolahaagii way soo caballamana waa la soo celin
ehelkiiyo dadkii ku jeclaa way kaa soo noqon adiga iyo camalkaagii baa godka iyo qabriga iskula hadhaya marka iyadoo sidaa ahayd adduunyadu ayaan haddana faaruqaynaa oon dhaafaynaa innagoo keligeena sidoo kaleetana ayada lafteeduna way dhammaanoo way gabogaboobi maalin ilaahay ugu talagalay baa jira oo ay dhammaanayso iyada dhanba laga takhallusi doono su-aasha isweydiinta le waxay tahay marka haddaad caaqil tahay haddaad caqli leedahay haddaad garaad leedahay haddaad garasho leedahay haddii ilaahay tawfiiq ku siiyo waxay mudan tahay in aad mar walba u diyaargarowdood isweydiiso wartan waad ka socotaa war berri baad tegi war caawaad tegi kartaa war haddii maalmo laguu kaadiyaba xataa waxaan ku sugaynin oon kuwa kaadinin cantatabka caqligaagaa tegi adigii baad duqoobi awooddaadii baad tegi maskaxdaad tegi ilmo yaroo kalaad noqon xaarkiiyo saxarada lagaa qaadiyo kaadida xataa haddii maalmo laguu kaadiyo noloshaadu halkaasay ku dambaynayo sile war kolley waad socotaa waad tegaysaaye war maxaa kaa horreeya ilaahay agtiisa maxaad dhigatay maxaad diyaarsatay inaad su'aashaasi aad isu weydiiso waa maslaxadaada iyo dantaada wey